xildhibaanada galmudug garabka cadaado axmed maxamuud xasan baasto ayaa waxa aanu weydiinay cidda dooratay iyo qaabka uu doonayo inuu u shaqeeyo. waxaa ii doortay xildhibaanadii galmudug oo runtii ah xildhibaanadii 89 xubnood ee xilligii galmudug la ballaarinaya ay soo xuleen dadkii u dhashay deegaanada galmudug. sideen wada ognahay xildhibaanada aad sheegtay inay ku doorteen waa garabka fadhiya magaalada cadaado, marka sidee doonaysaa inaad wax u maamusho ilaa cadaado meel laafsiisan oo laga aqoonsay ma jirtee? xildhibaanadu bashiir horta laba garab ma ahan, waa weeye 89kani waa xildhibaanadii sida dastuurka ay ku qoran dowlad goboleedka galmudug 89 xubnood oo runtii ah xildhibaanadii doortay madaxweynayaasha galmudug oo anigu aan ugu dambeeyay. marka laba garab iyo saddex garab lama oran karee madaxweyne kasta oo deegaankan galmudug u jooga iyaga ayaa doortay, anigana iyagiiba ay doortay. bayaan ka soo baxay golaha iskaashiga ee maamul goboleedyada dalka waxay sheegeen inaysan ku aqoonsaneen oo qaabkii lagugu doortayna aysan waxba ka jirin, marka arrintaasi maxaad ka odhanaysaa? golaha iskaashigu sidoodaba ayaga caqabad ku ah dowladdii Soomaaliyeed, waxay ka shaqaynayaanna waa burburka iyo duminta ummadda Soomaaliyeed. marka gola isaga laftirkiisuba aan ku dhisnayn sharci haddana ka shaqaynaya dowladnimadii Soomaaliyeed iyo qarankii Soomaaliyeed inay baabi'iyaan ku heshiiyey aqoonsi iyo midnaba loogama baahnaba. aqoonsigu wuxuu ku imaanayaa labo: shacbiga wax doortay oo wax dhistay ayaa aqoonsan kara nidaamkii ay dhisteen, waa qodob. dowladda dhexe oo dalka ka talisaana aqoonsi ayaa looga baahan yahay. labada aqoonsi waxaan ahayn xalaalba maahaba. marka laga hadlayo doorasho waa mid geedi socod dheer loo maro oo dad badan ay ku tartamaan, balse dadka qaar ee idinka soo horjeeda ayaa waxay sheegeen inay wax badan ka qaldanaayeen qaabkii lagugu doortay, marka ma is leedahay geedi socodkii wax badan baa ka qaldana? aniga doorashada lay doortay doorashooyin dalka Soomaaliyeed ka dhaca midii ugu xalaalsaneed weeye, sababtoo ah kuwa hadda dowlad goboleedyada maanta jira waxaa lagu doortay gacantaag. anigana waxay doortay xildhibaano dastuuriya oo sharciga ku qoran oo live looga daawanayo caalamka oo dhan si doorasho xalaal ah oo sanduuqba codka lagu riday. marka meel